مارسو 2022 markale waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaantan waxaa magaalada ku soo batay burcad hubaysan oo dadka ka dhacda moobeelada iyo bartaasha dhaca sidaas daraadeed ashta ka soo gaartay saldhigyada booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ciidanku waxay sameeyeen howlgal saf ballaaran ah oo lagu dagaalamayay burcadaas in dhawaala aba magaalada ku soo kordhisay boobka iyo burcad hubaysan oo hub wax ku qaadanaysa oo dadka ka dhacaysa moobeelada kombiyuutarada iyagoo siyaabo kala duwan iyo wajiyo kala duwan waxaan halkaan idinku soo gudbinaynaa bahda saxaafadda si loo gaarsiiyo shacabka ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta ay joogaan kiisaskii dhacay oo guud ahaan saldhigyada booliiska gobolka Banaadir aanu ku soo qabanay 2 ilaa 3 bilood ugu dambeysay waxay ahaayeen 94 kiis oo dhammaantood ahaa burcad hubaysan iyo isku dayo burcad hubaysan oo ay geysanayeen dad dhalinyaro ahaa oo damcaya inay dadka dhacaan 94taas kiis dambiyada 3 bilood ugu dambeysay ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir waxay kala ahaayeen waxaa dadka saldhigyada u soo dacwooday ee ashtakada qofkii la dhacay saldhigga yimid ee soo dacwooday waa 38 kiis inta booliisku ay waafajiyeen cadaaladda iyo garsoorka maxkamadaha awoodda u leh maxaa yeelay annagu fuliyaasha sharciga ayaan nahay laakiin dabaqaadda sharciga waxaa iskale garsoorka maxkamadaha awoodda u leh 25 kiis oo ka mid ah 94taas kiis waxaa la waafajiyey maxkamadda awoodda u leh maxkamadaha awoodda u lahaa waxaa unreported cases ama kiisas aan la soo dacwoonin ay yihiin ilaa 16 kiis oo dadkii falalkaas ay ku dhaceen ilaa 16 kiis oo dadkii falalkaas ay ku dhaceen ay kaliya social media ashtakadooda dhigeen laakiin aysan geysanin saldhigyada booliiska gobolka Banaadir oo sida sharciga iyo qaanuunka dalku yaalla uu qabo ayna tahay sababta saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir degmo walba loogu sameeyay saldhig booliis oo qofka muwaadinka oo degmadaas ku nool inuu ka helo adeeg ammaan inuu ashtakadiisa geysan karo oo dacwada halkaas ka bilaabanayso sidaas daraadeed 94taas kiis 16 kiis oo ka mid ah waa unreported cases ama kiisas aan la soo dacwoonin oo saldhigyada booliiska aan loo dacwoonin laakiin kaliya la dhigay social media waxaa baaristoodu socotaa oo cadeymahoodiina dhammaystirkoodii uu dhiman yahay ama dadkii falkaas ku eedeysanaa ay baxsadeen ilaa 15 kiis marka wadarta guud ahaan kiisaska 3 bilood u dambeysay ee dhicista moobeelada ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir waa 94 kiis waxaas garsoorka awood u leh la waafajiyey 38 kiis waxaa 38 kiis saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir u soo dacwooday 25 kiis waxaa la waafajiyey maxkamadaha awoodda u leh garsoorka 16 kiisna lama soo dacwoonin social media kaliya la dhigay 15 kiis oo ka midna baaristooda socota sidaas daraadeed guud ahaan dambiyadaasi falalkaas dhacay waa 94 kiis oo eedeysanayaashoodii hadda sida arkaysay qaarna ayna hor keenay qaarna ay ku kala xaniban yihiin ay ku kala joogaan ama yaalaan degmooyin kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir saldhigyada booliiska degmooyinka gobolka Banaadir sidaas si lamid ah waxaan rabnaa inaan fariin halkaan naga ka faa'iideysanayna fursadan maanta aan fariin gaarsiino ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo daafaha kale dalka inay ogaadaan social media inaysan ahayn bar laga dacwoodo isla markaana ashtakada la geysto sababta waxaan hore u sheegay saldhigyada booliiska gobolka Banaadir degmo walba saldhig loogu sameeyay waa in qofka muwaadinka ah oo dacwadiisa si fudud ku geysto saldhig marka qof kasta ee muwaadin ah waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed nala shaqeeyaan qofkii ay ku dhaco waxuun dacwo ah la kulmo ama ashtako wax dhibsado la kulmo inuu si fudud saldhigga booliiska ugu dhow u geeyo oo dacwadaas laga diiwaan geliyo halkaasna ciidanka waajibkiisa ay ka qabsadaan lagu soo qabto sidaas si la eg waxaa kaleetoo jira nambarka gaaban ee 991 ama 991 oo degmooyinka gobolka Banaadir shacabka Soomaalida ku dhaqan loogu talagalay inay shaqooyinkooda gaarsiistaan oo si degdeg ah jawaab rasmi ah looga bixiyo social media ma aha goob laga dacwoodo marka aan ku celinaya saldhigyada booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed heeganadii ah si leeyahay kaga caawiyo la kala shaqeeyo waxaan ka codsanaynaa in adinkana nala shaqeysaan oo dacwooyinka saldhigga la geeyo oo laga dacwoodo waajibkeena ka qabsano oo cadeymaha iyo eedeysanayaashaas ay soo dacweysan maxkamadda loo horkeeno sida kuwa maanta baad arkaysay sidaas si leeyahay goobaha u baahan in aan wax ka qaban ummadda gaarsiisano waxaa ka mid ah Cabdilaahi Shideeyaha qaybta lagu gado moobeelada celiska ah waxay qayb ka yihiin dhiirigelinta iyo kiisaska dacwooyinka ay sii bataan kiisaska dhacdooyinka ah oo moobeelada lagu dhacay ay sii bataan maxaa yeelay tuugii ama eedeysanihii wax soo dhacay wuxuu si fudud u tagayaa ku geenaya Cabdilaahi Shideeyaha iyagana howlgal saf ballaaran qaarna lagu fuliyay qaarna ay ku socdaan waxaan uga digaynaa dadka in falalkaas ku lugtan inay ka waantoobaan ugu dambeyn waxaan rabaa fariintan inaan gaarsiiyo mas'uuliyiinta kala duwan ama xil haya ama hore xil u soo hayay inta ugu badan burcadda aan hadda ilaa gacanta ku hayno eedeysanayaasha kiisaskaas ku eedeysan waxay staff u ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan
sidaas daraaddeed mas-uuliyiinta staafku hay waxaan uga digaynaa in aysan iyagoo daba socda saldhigyada booliiska tegin oo aysan u raadinin inay cadaaladda ka baxsadaan eedaysanayaasha iyaga la socota sidaas si la-eg qofka mas-uulka ee wiilka yar ee naftiisa ilaalinaya uu la socdo inuu ogaado wiilkaas la socdaa meesha uu ku dambeeyo iyo bulshada dhibaato inuu isugu geersiisay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu afayeen waxaa leeyahay lambarka 991 uu dansan yahay dad badan soo wacay saasay ka askunaa haddeer waa fursad fiican aan haysanaa bacdi saxaafadana la joogta oo adigaba qayb ah ka tahay haddeer qofkiin hays xilqaamo ha waco 991 xaaladdan idila hadlayna inuu lagu shaqaynayo mid kale waxaa jirta dad badan oo saldhigyada taga haddana ka cawaadaya in waxba aan loogu qabanin waxaa la rabaa fariinta noocaas oo kaleeta xaqay u leeyihin ummadda inay soo gudbiyaan inaan ka jawaabnana waajibaana lagu leeyahay waxaan idin ballan qaadaynaa in saldhigyada booliiska gobolka banaadir saldhigii aad tiraahdaan waa soo dacwooda waxna lagama qabanin dee 991 ayaa ah goobtii looga dacweynayey waa ku dacwoo kartaan waa caddayn kartaan meesha waxda lagaga qaban waajib waaye qasabayna nagu tahay waana adeega bulshada loo samaynayo wax laga gorgortami karana maaha waana waajib in saldhig kastoo ka dacwootaan adeegeeda laga taga saafay inay horu dhacdo caddaynteeda wayna la timaadaan ay kaga baahanaa way dhici kartaa haddaba waxaan idiin sheegay dadkan qowlaysatada ee gashtay sida wiilka yar aad arkayseen waa qof shacab ah wuxuu iska soo gashtay dareyska wuxuu soo qaatay hub qofkii arkay marka wuxuu isu ekeysiyey ciidamada dowladda laakiin ka mid maaha ciidanka dowladda waa qof shacab oo dareyska dowladda soo xigtay marka sida argagixisadaba ay u samayn karto inay inta xirato wax ku hadlayso ayaa burcadka aan ka baqaynin sharaftii sumcadda ummadda Soomaaliyeed ilaalinaynu u samayn karaa annaga waajib baa naga saaran waana soo qabanaynaa sida maanta iyo sidii horeba aan soo bandhignay markasta ciddii ku lug yeelatana cadaaladdan horgeyn doona taliya dadka xagga laga soo kala qabtay marka waxaa laga soo qabtay degmooyinka gobolka banaadir degmooyinka ay wax ka dhaceen kiisaska waxaan u raacnaa oobigeena ku raacnaa sida ay u diiwaan gashan yihiin degmooyinka dhacay marka degmo walba kiisaska yaalla ayaan kala hawlgalnaa oo halkaan wax laga soo waa imise degmo macnaha noo sheegtaa rabnaa guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir aan ku sida aan wada ognahay haweenka maya tirakoobkaas waxaa u qaadan kartaa tirakoobka mutabajaajta gobolka banaadir ka shaqeysa waa ilaa milyan ay ku dhowdahay inta mutabajaajta gobolka banaadir jooga marka intaasoo mooto ah oo adeeg ummadda Soomaaliyeed ee gaadiid wada heli karin u samaynaysa ma jirto sabab aan ku xanibin marka waxaan u baahannahay annagoo adeegiina dadka loo sameeyo ilaalinayna inaan haddana sharaftii iyo publicka security nabadgelyada guud ee muwaadiniinta Soomaalida aan ilaalino marka iyagana hawlgallo lagu qorsheysan oo lagula dagaalamaya socda waa mahadsan tahay kiisaska aan hayno horena dhowr jeer hore waa u sheegnay waana socdaan hawlgallo lagula dagaalamaya muqaadaraadka waxyaabaha dhiirigeliya ama sare u qaada in dambiyada ay soo laalaabtaan oo dambiyada dhacaan waxaa kow ka ah muqaadaraadka oo sababta noqda qofka inuu maalkiisa doorismo kadibna uu hawlgallo nabadgelyada iyo xasiloonida mid ku aqaano marka way socdaan muqaadaraadka hawlgallada aan kula dagaalamaynin ilaa xadna waxbaan ka qabanaa waana socdaan waana runta waa kuma taageersanahay muqaadaraadku inuu qayb ka yahay dambiyada dhacaya iyagana hawlgalladooda waa socdaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi